knn. kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay. waa Arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay 17 bisha July sanada 2019. waa maalinta 198 ee sanadkan. waxaa sanadkan ka harsan 167 cisho. dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta oo kale sanadii 1815 hogaamiyihii Faransiiska ee xilligaas Napoleon Bonaparte ayaa isku dhiibay ciidamada Ingiriiska ee ku sugnaa magaalada la yiraahdo Rochefort. maanta oo kale sanadii 1821 dawladda Spain ayaa ku wareejisay gobolka Florida dawladda Mareykanka, sidaas ayuuna uga mid noqday gobolada dalka Mareykanka. maanta oo kale sanadii 1898 ciidamo Mareykan ah ayaa qabsaday magaalada Santiago ee hadda caasimadu waa dalka Chile. xilligaas waxaa socday dagaalkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Spain. maanta oo kale sanadii 1945 madaxdii xilligaas ee dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Sofiyeetka oo shir ku saabsanaa xoojinta dagaalkii labaad ee adduunka ayaa loo sheegay inuu baxsaday hogaamiyihii ay la dagaalamayeen ee Jarmalka Adolf Hitler. maanta oo kale ugu dambeyntii sanadii 1976 ciyaartooyda ilaa iyo 25 wadan oo Afrikaan ayaa diiday inay ka qayb galaan ciyaaraha Olombikada adduunka oo sanadkaas lagu qabtay dalka Canada. dalalka Afrika waxay ka biyo diideen in ciyaartooy ka socotay dalka New Zealand ay matalaan dalka Koonfur Afrika. xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay caalamka ayinta